bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Aasiya waxaan doonayaa inaan tusiyo sida gafuur xirka loo sameesto iyo waxyaabaha laga sameesto waxaan ka sameeysan karnaa waxyaabo yar yar oo gurigaaga yaala dhamaanteena gurigeena laga wada helo waa diric ama baati saahadba u jeedid isla markaasina qayb yar ama gobol yar oo kugu filan ah sidoo kale waxaad isticmaali kartaa masar waxaana isticmaali kartaa xijaabkaaga waxaad ka wada heli kartaa gurigaaga sida aan u jeedno kan waa masarka caadiga ah ee aan u isticmaalno xijaabada ama aan ka hoos xirano xijaabkeena caadiga ah marka aan doonayno inaan isticmaalno oo gafuur xir u isticmaalno waxaan sameynaynaa talaabada koobaad sidaas ayaan u laabanaynaa marka aan sidaa u laabno deetana waxaan ku xiraynaa afka saas ayaan u xiranaynaa saan marka u xirano waan geejinaynaa kadib marka aan saa u xirno waxaan sameynaynaa xijaabkeena caadiga ah ayaan kor ka xiranaynaa saan oo baad u xiranaysaa marka aad saa u xidhatid kadib waxaad tijaabinaysaa hareeraha in uu si fiican kuugu xiran yahay wajigana si fiican ugu dabolan yahay gafuur xirka halkan ayaa ugu muhiimsan ayadana waxaa la rabaa inaad ku adkaysid si aan waxba uga soo gelin waa si fudud isla markaasina kuu saamaxaysa in aad adigoo aan waqti badan luminin aad ku qabsato hawlahaaga isla markaasina aad suuqa ku aado haddii aad u baahan tahay